runtii wax badan ayaa laga soo hadlay degmada Shibis ee maantay gudoomiyaha cusub loo magacaabay waa degmo xadaarad leh soo jireen ah kamid ah degmooyinkii lagu aasaasay gobolka Banaadir degmada Shibis waa degmo runtii aan ugu bagay aan ku jeclaaday inay la xisaabtanto maamulkeeda taas waxaa tusaale u ah hadalladooda kooban oo haddaba ay bilaabeen la xisaabtan waxaa kaloo tusaale kale u ah gudoomiyaashii hore xilka u soo qabtay Shibis qaarna xilka laga qaaday oo waa la xiray markay soo dacweeyeen ayagu isla markaas oo isaga laftiisa oo qiray wixii lagu soo eedeynayay waa uga mahadcelinaynaa qirashadiisa laftiisa oo waxay fududaysay dacwadiisa haddii wax la isku inkiro markhaati iyo maxkamad ay aadi lahayd laakiin qirashadu waxay qayb ka tahay xalka sidoo kale gudoomiye Monica oo kamid ah gudoomiyaasha soo maray Shibis waxaad ogtihiin duqa magaalada Beledweyne in loo dalacsiiyay marka arrintaasi waxa ay ku timid la xisaabtanka reer mudug reer Shibis oo qaarna xiraya xilka ka qaadaya qaarna dalacsiinaya gudoomiye Ali Soomaali ama waxaa loo dalacsiin doonaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan ama wuxuu iska joogi doonaa meelihiisa wax kale intaas ma dhaafay Ali Soomaali waa nin mutacalib ah aqoon leh soo ahaa wariye ku shaqaynayay cilmiga saxaafadda soona bartay aan filayo magaciisa inaad idaacadaha ka maqli jirtaan laakiin waa suuragal in muuqaalkiisu idinku cusub yahay waa ku kalsoonahay anigu ku kalsoonaanta aan ku kalsoonahay ayaana keentay in loo soo magacaabo gudoomiyaha degmada Shibis waxaan reer Shibis ka codsanayaa inay iyaguna kalsoonidooda siiyaan kadibna wixii uu la yimaado kula xisaabtamaan la dalacsiyo haddii uu mutaysto la soo dacweeyo haddii uu mutaysto laakiin in si buuxda loola shaqeeyo